بسم الله الرحمن الرحيم. waxaa farxad weyn oo ah aniga iyo wasiirka khaarijiga inaanu halkan ku soo dhaweeyno maanta wafdi ballaaran oo runtii marka la yiraahdo wafdi ballaaran weyn iska nidhaahnaay waxa weeye wafdigani shirkadda Genel Energy waxa weeye maamulkii shirkadaas oo idil ayaa maanta inuu yimi oo siyaare inoogu yimi wasaaradda hawl ka dhaxaysa maantana soo booqday madaxtooyada oo madaxweynaha la kulmay shirkadaas sidaan hore ku sheegay waa shirkad isugu jirta Ingiriis iyo Turkish waa shirkadda shaqada ugu laxaad leh xagga shidaalka sahamintiisa ka qabanaysa dalkeena sanadkan soo socda insha Allah ilaa 40 milyan lacag ku dhow ayay gelinaysaa oo maalgashiya shaqada ay bilaabiso sanadka soo socda 2013 insha Allah shaqadaas haday rajo fiican yeelato oo ay fahmaan meeshaas inay rajadeedu wanaagsan tahayna marka wax loo gudbayaa inay ceelkii ugu horeeyay sahamka ahaa qodaalkiisa la bilaabo sanadka 2014 ama 2014 waa markii ugu horeysay shaqooyin caynkaas oo baaxad leh oo ku saabsan sahaminta shidaalka inaynu maalinkan maanta dalkeena ka bilaabno runtii shaqo badan waxa ka qabtay shirkaddan soo jiidisteeda wasaaradda iyo shirkaddii hore blocks-ka ka shaqeynaysay oo madaxa ka ahaa Ibrahim Maxamed Xasan oo hawl badan ka galay sidoo shirkaddan magaranaysa u soo jiido oo maantana ay farxad weyn u tahay shirkadaas inay maanta heshiiskii la soo gashay oo ay shaqadan inala bilaabiso boqolkii 75 iyadoo ay mas'uuliyadda qaadanayso shaqada ka dhacaysa sanadkan soo blocks-kan ay haystaan ka dhacaysa insha Allah marka waxaan jecel lahay shirkadda waxa inala hogaaminaya muxuu ahaayay wafdigooda CEO-ga ama maamulaha guud hadee baad maayo shirkadda oo aanin magaranaysa laga yaqaano industry-ga saliidda laga yaqaano oo ahaan jiray madaxii shirkaddii weyneed ee BP la oran jiray oo nin adduunka oo dhan laga yaqaano markay wixii saliid ku saabsan laga yaqaano weeye khibrad weyn u soo jiiday shirkaddan oo imka mugtay madaxa u noqday waxa ku xiga presidentka Maxamed Safil oo nin Turkish ah oo ragga shariska ugu waaweyn kule isaguna kamid ah oo shirkaddii hore ee shirkaddan ay ka soo bilcantay asaaskeeda lahaa marka runtii shirkaddan waxay leedahay awood badan Ilaahay baa awood leh xagga maalgashiga iyo xagga farsamada labadaba oo ay karti weyn u leedahay inay garanaysa khayraadkan inuu dalkeena filayno inay ku jireen inay noo soo saarto marka insha Allah 2014 marka la gaaro haddii dalkeena Ilaahay wax dhigay waxa laga yaabaa inuu wax ka aragno waxaan marka insha Allah ku wareejinayaa Maxamed Cabdillaahi wasiirka khaarijiga oo kelmadii isaguna inoo dowladda bismillaahir rahmaanir rahiim waxa maanta sharaf iyo qadarin baa waa Soomaaliland in wafdi aad iyo aad u ballaaran sidii saaxiibkii Xuseen ba sheegay uu dalka booqasho ku yimid wafdigan sida la sheegay waa shirkadda weyn ee Genel oo shirkad ku takhasustay saliidda soo saarkeeda iyo cilmi baarideedaba sharaf baan u tahay shirkad qiimaha iyo xajmiga leh inay maanta go'aan ku qaadatay inay Soomaaliland timaado maalgashi